lagu hitaanahay askari daacadanahay daljirgeesiyaanahay dugsi lagu hitaanahay fanka iyo suugaanta Soomaalidu waxa uu leeyahay taariikh iyo sooyaal qoto dheer waxaana uu jiraa qarniyo badan waana mid ka mid ah habka iyo noocyada kala duwan ee ay Soomaalidu ku xiriirto isaguna gudbiso dhammaan fariimaha iyo xogaha dhexdooda ah ee ay doonayaan in ay isla wadaagaan horumarinta fanka iyo kobcintiisu waxay soo martay marxalado badan oo kala duwan waxaana gardaadiya oo dheeliga u diida fanka iyo suugaanta horumarinteedana isku hawla abwaaniinta Soomaaliyeed fikirka ka dhex guuxa maskaxdooda waxay abwaaniintu ku weeleeyaan qalin iyo warqad si banaanka loo keeno fikirkaas kadibna waxaa ku luuqeeya oo codad danan leh oo lagu laray laxan siiqa hadalka saxaya iyo muusig qurxinaya qaab u dhaca warka oo fariinta iyo murtida gaarsiinaya hadba dadka la rabo in fariintaasi gaarto sidoo kale waxay abwaaniintu curiyaan maansooyin kala duwan heeso iyo erayo kale oo dhiirigelin iyo guubaaba isugu jira abwaaniintu waxay tiriyaan erayo ay ku dhiirigeliyaan bulshada si ay ugu bogaadiyaan wax wada qabsashada dhexdooda ah dhiirigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed si ay u laban dadaalka ay ugu jiraan difaaca qaranka haddaba kaalin noocee ah ayay abwaaniinta Soomaaliyeed ka qaataan dhismaha ciidamada qaranka waxaan weydiiyay su'aashaas abwaan Xasan Haybe Cabdullaahi oo ka tirsan abwaaniinta Soomaaliyeed aad iyo aad baan u bogaadinaya barnaamijka daljir ee soo deysaan ciidamada guubaabinaya dhiirigelinta ciidamada wax dhan weeyaan marka qayb laxaad laad ka qaadanaysaan adiga iyo bahda telefishinka iyo agaasimaha u tahay mas-uulka u tahay dhammaantiin way ku bogaadinaya barnaamijka fiican ee daljir asida joogtada u qabataan toddobaad walba waxay ku leeyihiin waa midda koowaad horta waa wacdigelintaasoo qaab isugu jirta oo marka hore waxay ku dhiirigelinayaan in dalka iyo dadka loo adeego oo daljirada laga midnoodo marka hore ku guubaabiyaan markay galaan inay haddana dhaqan toosni ay ku adeegaan oo dhaqanka ay toosiyaan ayay marka labaadna xagga dhaqanka iyo akhlaaqda iyo mucaamalada nolosha ay ku dhiirigeliyaan marka dambena ujeedooyinka loo idmado ee dalka iyo dadka amnigiisa inay hantaan oo su'aalahan waxay arrimaha loo diray si dhab ay uga jawaabaan ayay ku guubaabeen marka wacdigelin weeyaan guubaabo weeyaan dhawada abwaan Xasan wuxuu muddo badan tirinayay heeso gabayo iyo erayo kale oo uu ugu talagalay ciidamada si uu ugu dhiirigeliyo uguna muujiyo garab istaag waa kan abwaan Xasan oo sharaxaya noocyada heesaha ah ee uu sida gaarka ah ugu talagalay ciidamada qalabka sida heesaha dhowr qaab baan u wajahnaa mar waxa weeyaan lib iyo wanaag markay sameeyaan baan maaragtay libtoodan ku qiraa oo qaar waa lib sheeg oo example waxa weeyaan tan dhahayso ciidankii dalkeena Jubbaland curiya calankan u sudhay cirif taagan baana cisi dawladeena iyo ciid iyo dadweynaha cadow ku jiray cabsanaynin baana cadaawaha xuduudaha halgamaya cadaawaha horjoogay caabinaya lacabkee looga caagay baana ee shacab yahow ciidamay inaan guusha calabsado cisi dawladeena ciidankiina taageer qaabkaas qaar u soconaya qaarro kuwa kale oo gofartan waxay dhahayeen ciidankii dalkeena Jubbaland diratay deegaan u gaar iyo darawushayana ciidan la isku daray oo la isku duubay idilkeed laga dhigay ul iyo diir dad Soomaali baana dad qabiil ka degay oo dawladnimada jecel oo qaran dooni baana ciidamada digigaxin danqashada lahayn ee naxayo lagu aragcado dooxataana ciidan koorsadana noocadugay la diraan dubanayo cunayo daanka gale marka waa noocaas waxaan ka dhignaa goodiga marna daba qaab tirtirsiyan ka dhignaa waxaan dhahnaa hadda example aan ciidan koorso ka soo baxayo dugsigan akademiga oo ciidan ka baxay midaan u diyaariyay waxay dhahay ciidan iyo diyaarkeed darab koorso qaatay dugsiga tababar loo xiro waxaan naga dardaarana dalka iyo dadkiina daba qabashadiina iyo dawladnimo hirgelinta dushiina u saaray deexdeena webiyeed iyo daaqsinkeena xoolaha iyo diisheena webiyada cadaawaha ka dabarjara oo daalkii dhibaatada iyo diiftii xanuunka hadii aan dil loo helin dalka hana dhimaystaan ee daalkii xanuunka iyo diiftii dhibaatada bulshada yacnayaasha qaabeshinka iyo soconaysa midna waa tirtirsiga gabayaduna labada qaab ay u kala qaabisana qodob mar ay nibin iyo guul qabtaan ayaa guusha iyo waxaas lagu bogaaday
qaarna waxaa weeyaan kuwa kaloo sixitaan oo horey u socda iyo su-aalahan arrimahan laydin idmaday si dhaba uga jawaaba kuwa ku dhahaya weeyaan. marka ay abwaaniintu curinayaan heesaha, gabayada iyo fariimaha saamaynta ku dhex yeesha bulshada dhexdeeda, waxay bixiyaan dadaal dheeri ah si ay waxyaabaha sida gaarka ah ugu muuqda abwaaniinta ama bulshada dhexdeedaba ka dhex dhaca ay ugu bedelaan fariin saamayn iyo mug ku dhex yeelata bulshada dhexdeeda. كل وادي واش بحال هذا مثلا أبوانimada waxaa la dhahaa suugaanyahanimada qaar waxaa la yiraahdaa waahida la yiraahdaa qaar khibrad iyo aqoon adigu waahidoon bay ku saleeyaan adigu waa shaqo qofka marka adigu waxaan ku soo diyaarinaa fikir dheer iyo dadaal dheer iyo saar ayaan ku soo diyaarin marka waxay bulshadu arkayso wax ka baxsan inaan keenan inta badan yaanu mu'akid garaynaa marka heesaha ayaa ka mid ah dhambaalada fariimaha loogu diro cadowga si loogu muujiyo awoodda iyo quwadda ciidamada ka soo horjeeda iyo sidoo kalena dhiirigelinta ciidamada in la tuso cududooda iyo awoodda ay leeyihiin. ciidankii dhulkayga dharka xiran dareeska dabka dhaansan qaatow dhan kastoo adduunyada dhismo dawladeed iyo dhaqaaliyo horumarinta ciidankay dhisteen oo dhiigooda hurayo dhimashada aan diiday yaa guusha dhaliyay idinkuna dhigoodii ciidankii dhulkayga alla idinku dhaarshay xilka dhabarka saartay yaana dhaawac laga gelin 30 sano dheeraad dhibaatada colaadaha dhulkeenii ka soo jiray dhiigga daadanaya dhimashada la yaab kala dhex maraya shacabkii inaad dhaafisaan colaadaha nabadda ama dhalisaan yay dhowrayaan dadweyne ciidankii dhulkayga alla idinku dhaarshay xilka dhabarka saartay yaana dhaawac laga gelin dawladdeena dhalatay ciidan iyo dhismaha qaran weli aan dhamays noqon dhulka aan ku wada fidin dibin iyo laxaad iyo dhabar iyo xanjaad iyo xoogga ay ku dhaqaaqdo dhabti waa idinkee ciidankii dhulkayga alla idinku dhaarshay xilka dhabarka saartay yaana dhaawac laga gelin dhammaanteedba Soomaaliya dhul walaalo ahaa dhulka aabba wada dhalay dhaqankiiyo diinta dhulka uu ka dhaxayo midnimadan dhignay dadkeenii ka dhaqaaqay ina abad dhalisaan bay dhowrayaan dadweyne ciidankii dhulkeena alla idinku dhaarshay xilka dhabarka saartay yaana dhaawac laga gelin dhulkan aynu leenahay ee ka dhex buuxa khayraad badda dheer ku taallay webiyadu dhex marayaan iyo dadkan gaajo dhibaysa dhul shisheeye u hoorsan sida aynu ku dhafno dhulka wax soo saarka kobceena dhaqaale ku dhafno saboolka ciidankii dhulkayga alla idinku dhaarshay xilka dhabarka saarteen yaana dhaawac lagu gelin qaabeeshinkaasaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid a mid dhahaya ciidankii dhulkayga guulaan dhib loo marinayo laguma gaadhe dheelkiiyo qabowgiyo dhaxantiiyo dabashee dhibic roobta degaysaad habeenkii dhex joogtaan dhibaatada ku jirtaan yeesha dhabar adeegood guudaan dhib loo marinayo laguma gaadhe dhibaatada dhex maraysaan yeesha dhabar adeegood dhalanoolka suudiga maalinta dhex maraysaana dhididkiinu da'aya dharku uu ku kululaan dhexda suunka laga furay ciidankii dhulkayga guulaan dhib loo marinayo laguma gaadhe maxaygaad maraysaan yeesha dhabar adeegood qaabashinkaas u soconaya oo waa marka waa dhiirgelintaas oo kan hadda waa maanso waaye. suugaantu waxay ka mid tahay hubabka noocyadiisa kala duwan ee ay isticmaalaan abwaaniintu si ay ugu dhiirigeliyaan ciidamada qalabka sida gaar ahaana marka ay cadow dagaal kula jiraan waxaana ay abwaaniintu diiradda saaraan xilliyada dagaalka lagula jiro argagixisada in ciidamada loo dhiirigeliyo qaab wadaniyad ku dheehan tahay difaaca dalka iyo diintana waajib tahay lagana badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed dulaysiga ay sida joogtada ah ugula kacaan kooxaha argagixisada ah ee doonaya in ay ragaadiyaan horumarka iyo isku duubnida bulshada dhexdeeda ah. waxay ka turjumaysaa ciidanka waajibaadka faraha badan ee u yaala amni ama habashada yacni nimanka waraalayaasha waxa ku jira nimanka dhugmalaawayaasha naga taagan dhinacyada amnigeena dhamay xasilooni dhaawacay idinkoo u dheer qaba dhul iyo laxaad iyo dhamac iyo rasaas oo la dhex qaaday ilka oo dhulka inaad ka saartaan dhammaan dowladda bay dhowrayaan dadweyne ciidankii dhulkeena xilka dhabarka saarteen يعني ciidanku inay waajibaadka loo idmo si dhab uga jawaabaan ciidanku yani waajibaadka loo idmo si dhab inay uga jawaabaan oo amniga hadlaan oo dadweynuhu xasilooni uu ku saaxo sida dagaalka lagula jiro kooxaha xagjirka uusan u lahayn xad iyo xuduud gaar ah oo celisa ayay guubaabada abwaaniintu aysan u lahayn xad iyo xayndaab si gaar ah u celiya oo abwaaniintu waxay tiriyaan erayo heeso iyo gabayo ay si isugu mid ah ugu dhiirigeliyaan dhammaan ciidamada qalabka sida ee u taagan difaaca dalka iyo la dagaalanka kooxaha xagjiriinta ah waxaan u dhiirigelinaa hadda example waxaan u dhiirigelinaa horta inta badan horta gabayagu iyaga astiriya
ciidanku markay sidaas oo kale intay halgan sameeyaan ay nimanka dhugmalaawayaasha ay tallaabooyin inay ka qaadaan waxqabad sameeyaan inta badan gabayadu horta markaasay toosan yihiin laakiin iyagoo jugjug halkeeda joog leeyahay wax gabay oo la tirin karo gabaygu isagaas tiriya in layskama tiriyo hadda example markaa ka soo qaado hadda kismaayo ahaan ama jubbaland ahaan ciidamadeenu waxay u howlgelayeen si qaabka dembi ka hortaga inta badan qab dembi ka hortaga ayaynu u howlgelaynay oo yacni falkii isagoo dhicin ba ka horbaa inta maaragtay yaa isagoo adigu dhowr dhibaatadii aan dhiig iyagoona nimankii dhiig daadin dhowr ruuxna ay nalaga qalanin yaa khabaarkii xogta intaynu helno ama dadweyne ha soo helaan ama ciidanku ha soo helaan intaynu helleen horta khaladkiiyo dembiyadii ka hortegi jira waa dhexwaahid bay marka si aan laynooga baranba dhowr gacmood yaa fulay kabacdi meesha lagu hortegi lahaa inta hortagi aan ka yara gaabinaba si ka daba oroda ayaa dhowrkii fal iyo dadkii geystay ayaa loo raaraadiyey canaan badan baa marka ciidamada ku dhacdo waxaa la yidhi qaabkii hore ad u shaqayn jirteen waa inaad u shaqaysaan waafajinta ilaahay baa le wax yar kabacdi wixii oo dhan hawlgabdhabaa la sameeyey waxaa la qabtay marka 3 habeen iyo wax isku xiga yaa dhowr darmuso waaweyn oo qaraxyo ku jiraan iyo bombooyin fara badan iyo niman bastoolada haystay waxbaa la qabtay siiba ciidanka nabad sugidda ayaa qabtay ururka magaalada ka howlgelaya marka haddaba howlgalkii wixii waan farxay markaasuu haddaba ii habboonaadeen amniriyo gabay baan halkaa ka gabayga marka dhowr xogay baan ka taabay wuxuu dhahayaa hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye halabuur murtidana sidiiyo tixdan haatan maarinayo ee siyaaboonu soo xidhahayeen hubiyey weedhayda ee halkii aan ku waday iyo ujeeddada hubanti taabsiini ee ciidamada inaan soo hordhigo ilaa habboonaaday iga horiyay maanta oo kala layga helayaay ee jubbaland hubaal ciidamada heerka gobolkeenna ee habcasriyaba loo tababare hubanti loo leyliyey ee hubka iyo dirayskiyo dhammaan haysta qaalabkooda qaar weliba hareertay jiraan amniga iyagu hagar la'aan toosin nabad sugid halbowlay u tahay waana la hubaaye ciidan badan hagaaga runtii aad hiyiga fiican ee haybtii iyo qabiilkiiyo ka tegay hadafka sii liitay ee hanaan dowladeed iyo jidkii haysta qaarankooda ee dowladniba hirgelinteed haddana aadka ugu helan ciidan badan aan haynay runtii heerka gobolkeenna qaar weliba hareertay jiraan amniga iyagu hagar la'aan toosin nabad sugid halbowlay u tahay waana la hubaaye halgan iyo dagaal ciidamada heesa ugu taagan hadhka geedigelayay habeen guura soconaya ee hayjad iyo qarfaha meeray iyo hawdka iyo kaynta ee hogge iyo hulushiyo halkii cadowgu uu joogo habtareerin intay ugu galaan holaca labsiiyaan ee guushaba inay soo hantaan hibada loo siiyey ciidan badan aan haynay runtii heerka gobolkeenna qaar weliba hareertay jiraan amniga iyagu hagar la'aan toos nabad sugid halbowlay u tahay waana la hubaayeen halgan iyo dagaal ciidamada heese ugu taagan hadhka geedigelaya habeen guura soconaya haysadiiyo qarfaha meerayiyo hawdka iyo kaynta ee hogga iyo huluushii halkii cadowga uu joogo habtareerin inta ugu galaan holaca leebsiya ee guushaba inay soo hantaan hibada loo siiyey ciidamadan hayna runtii heerka gobolkeenna qaar weliba hareertay jiraan amniga iyagoo hagar la'aan toosin nabad sugid halbowla u tahay waana la hubaaye hudhud laba afleeyo cadowga hoosta uga baaqa habaarqabad dadkiisii hodo hawsha lacag mooda hamaan hunguri qaatay oo hilibka ruuciibsan ciidankeenna lagu hayniyo hubantiya fiican ee hore ilaahayo daacadnimo hawlu qabanaya ilaahay haddaayey ciidamada haylo idilkooda qaar waliba hareertay jiraan amniga iyagoo hagar la'aan toosin nabad sugid halbowla u tahay waana la hubaaye hilowgii wadaninimo ciidamadu halkaa laabta kaga yaallo oo dalka hooyo ay jecel yihiin iyo hodanka ciiddooda naftoodaba inay u bahuraan waa horaba gaystay ee si habboon wax qabanaya hubanti amniga nooba hananaya ciidamadan hayna runtii heerka gobolkeenna qaar weliba hareertay jiraan amniga iyagoo hagar la'aan toosin nabad sugid halbowla u tahay waa horyaal dhabe hanaan kala dambaynta habboon jubbaland uu shacbigu haysto ee qurbajoog ku soo hiranaysa hayaan geedimanayso ee hambalyaysay soomaalida helay qabaarkooda yani ciidamada hayna runtii heerka gobolkeenna ee qaar weliba hareertay jiraan amniga hagar la'aan toosin nabad sugid halbowlay u tahay waa horyaal dhabe
hanti iyo inay maal dhaqdaan ciidamada kuba haboonayn ee hawlo gaar aan rabin inay hadal ka gaaraan ee hiilkii dadweynaha heegan ugu taagan ciidamada hayna runta heerka gobolkeenna qaar waliba hareertay jiraan amniga hagar la'aan toosin nabad sugid halbowlow tahay waa haryaal dhabe yacni saas uu soconayo marka hawlgalkii yaraa ay fiicnaa ee guulaystay najaxay ay fuliyeen dartoodii baa marka waxay keentay inaan ammaanta aan galow libta ay leeyihiin ay sida gaarka u mutaysteen sida guud ciidamadu way wada leeyihiin oo gobol qaybtiisa hore waxaa ku jirtay daraawiishtii haddaan booliskuba hawsha nala hayn nabad sugidda keligeed hawl idilmayna qabateen ee ciidan aan ishurin baanu noo hiil aan kala waayey hal ujeedda baan leenoo laga habaabay qaabeeshinkaas arrinta hore waa naga soo gaabiyey ayaa ku jirtay bogaadinta iyo wacyigelinta ay abwaaniintu jeediyaan keliya ma ahan mid si gaar ah ugu socota ciidamada ee waxay maansada iyo murtida qaarkeed toos ula hadashaa shacabka oo ah kuwa lafdhabarta u ah dhismaha dowladnimada iyo hirgelinta cudud ciidan oo cadowga ka difaacda dalkeena waxa weeye horta halbowlaha arrinta waa dadweynaha waayo ciidanka buuxa dhalay horta waa shacabka hadda dowladda federaalismka inoo dhisan awoodda ugu sarreysa wasiirka gaashaandhigga shacab baa laga dhigay nin jaakeed xidhan baa laga dhigay sababta looga dhigay waxaa weeye awoodda shacabka iskale ciidanka horta waxaa dhalay waa shacabka dowladda waxaa dhalay ee xildhibaanadii mudanayaasha laga soo gurayana waa bulshada dhexdeeda marka halbowlaha waa shacabka marka shacabka in lala hadlo waa muhiimadda waa taargetka koowaadba oo kolka hore marka ciidamada la qorayo nin walba ciidanka galaan dhahayno ninku shacabka ku dhex jiraa ninka ciidanka soo gelaya ciidanka quranaya ee tababaranaya dhibooga iyo koorsooyinka adag ee danabkaa gelaya markiisii horeba dadweynaha ayuu ka mid yahay marka hadda aniga ahaantayda xasanka kuwa yacni dhinacyada bulshadoo dhan aan maansa yaroon kula dardaarmayay ayaa jirtay waxay dhahaysaa dhammaanba soomaaliya soddon sano dhawaadka dhibaatada colaadaha dhulkeena ku soo jiray sida dhiga daadanaya dhibashada layaabka dhaqso aan ku dhaafne dhammaantii bulshada ay qaar walbowba dhankiina nabadaan ku dhaqnayna dhulkan aynu ku joogno war dhankiina ka eega oo kuwiina dhididaya dhabarkooda raraya dhudhunkoodaba maala ee xamaalin la dhahaya loo dhoweeye xalaasha inay dheebsanayaanoo nabadaan ku dhaqnayn oo dhulkan aynu ku joogno war dhankiina ka eega dhalintiina iskuulkii dhiganaysa aqoonta ee dharaartu alla gooyo macallin soo dhexgelaya cilmi dheeri la siiyo culuntaad dhigataan sida ay ku dhantaalin oo ku dhammayso iskuulka aan dhabaheeda tilmaamay nabadaan ku dhaqnayna dhulkan aynu ku joogno war dhankiina ka eega kuwiina dhegta waaga aroorta dhibiya dhaan u kacaaya ee idinkaa dhib yaraysan oo dhudhubyaal faraweyn iyo idinkaa dhib yaraysan oo dharaartii habsanayn oo dhabayaal faraweyn iyo dhudhubooyin maraaye nabadaan ku dhaqnayna dhulkan aynu ku joognay war dhankiina ka eega dhabayaal la maraya dadku uu isku dhaafo kuwa aad ku dhawaaday cooshasha ay ka dhisteen iyo miisaska dhiganayo yacni idinkaa maaragtay yacni nabadaan ku dhaqnaynayn oo dhulkan ku joogna war dhankiina ka eega oo qolyihiina kuwiinaa dhaqdhaqaaqa ee dhaqaala haysta ee dhoofinaya badeeca ama keena dhulkeennow yacni faa'iidada dhurataan sida aan ku dhimayno ubadkiin ku dhaxlaayo aan dhabaheeda tilmaame nabadaan ku dhaqnayna dhulkan aynu ku joogno war dhankiina ka eega kuwiina suuqa dhex jooga dilaaliin la dhahayo ee dhabar xoolo la keenay heshiiskooda dhameeya ee ka dhex qaata masruufkow yacni yacni nabadaan ku dhaqnayn ee dhulkan aynu ku joognay war dhankiina ka eega saasaa adigu qaybaha bulshada yaan qolo walba nabadda oo qaar walbowba dhankiina meesha aad degaysaan darisayn dhab yeesho ruuxa dheeriyeediin iban si dhaba maaragtay intuu adigu dhibgadaha idiin iban intuuna dhowr ruux intuuna dhiiquna dhowr ruuxa kaa dilin waa inaad dhuruftaan oo caadimada u dhiibtaan bay dhahaysa marka waa loo maasa dheer oo noocaas oo qaybaha bulshada aan sagsagsan ula hadlayo yaa ka mid ahayd kuwa bulshada kula hadlaya ku dhiirigelinaya taariikh ahaan dagaalada dunida ka dhaca ee u dhexeeya quwado isdiidan ama fikrado kala aragti ah waxaa looga qayb galaa laba nooc oo kala ah af ama adin haddaba abwaaniinta Soomaaliyeed midkee ayay adeegsadaan marka ay doonayaan in ay la dagaalamaan kooxaha fikradaha xagjirka ah ee marin habaabinta ku ah diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeedba keenay wadankeena laba horta dhacdo ka galaan oo kolkol qorigayba qaataan oo safka hore inta galaan yaa ninka keerkeeriya ka gabanaya ninka sargaalkii dagaalgelin fiicnaan waaya gabanaya ee goodka dhifayska aan madaxa ka bixin yaa suurtagal ah raatiinta u geliyaan adug safka inay qoriga qaataan oo galaanna way ka suurtagashaa in ay xagga kale dhiirigelinta iyo gubaabada iyo wacdigelinta ay la garab taagnaadaan way ka suurtagashaa marka labada dhinac macal gacantii hadalkaba kolkol qaar baa isku dara qaarna hadal maaragtay gubaabada yaa ayay ku wadaan marka labada qaab bay ku dhamaan gacanta way ka hawlgalaan
abwaan xasan haybe ayaa dardaaran iyo bogaadin ciidamada iyo shacabka hawada u mariyey isaga oo xusuusiyey muhiimadda ay leedahay in cadowga meel looga soo wada jeedsado ciidanka waxaan u gudbinayaa fariinhaan maaragtay u tirinayaa ciidanka Soomaaliyeed dhammaantood oo kala saaran waxaan u gudbinayaa dalkan wuxuu u dhiban yahay waa nabad dawladda taabagal bay loo baahan yahay dawladda taabagalkeeduna ciidanka taabagali kara kasoo ilaahay marka ciidamada waajibaadka loo idmaday dhicisku haynta badan uu ku dhintaa intan ka badan in qol iyo nabad saddex yaal loo lahaan waa inaga ku soo dhumayna marka sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada colaadaha in loo soo afjaro ayaa horta ku ciidamada ku gubaabinaya dadweynahana waxa weeyaan يعني واحد نقل كودي لما يدقاله هودي لما يدمر بالبطل عيسى سامي سوى الدبوينة يجي نفتي كذا نبكي نسكوك السنة آخرية دوم بالله سنة صدم كسنة إذا قصدي مريسين وجود بلاي وين نقول بو شقيان نقولين هل إن عوين إلى الشقيان الدولة دي عيدك وين قريب استغل لما أنت تقولين الرجال طول كوير يكوي ولما أنت عندك ملاويا شيء جوا بنان تاجر وجنبه مركز الدبوينة أنا وحنين الدولة دي عيدك اللي سنة بنان استاجر dawladda iyo ciidankana waxaan leeyahay hawlaha la idin si dhab ah uga jawaaba intaas maar shacabku inay ciidanka dawladda iyo ciidanka waa inay si dhab ah u la wada jiraan dhinaca kale waa inay la shaqeeyaan waa inay dawladda iyo ciidanka la shaqeeyaan haddii laakiin dhinaca dabka ka shidaan dhinaca camira waxa meesha ku dhumaya waa iyaga ganacsatada naftigeena si gaar ah waxaan u gudbinayaa ganacsatada waa qolada qoriga xawada labada dhinacba ka shidaya inay kuwana lacagta siiyaan iyo dhaqaalaha xaqana ay ku bixiyaan iyaga naftigooda labada marka waxa fiican intay ilaahay ka baqaan inay dhinaca dawladda nabada iyo maaragtay geedkan weyn ee la harsanayo dawladnimada si ku taabigin lahayd inay ka shaqeeyaan oo dhinaca kale hadday noqoto inay lacag siiyaan inta iska dayn inta lacag bixin lahaayeen fidna dhalisa inay ganacsiga iska daayaan oo iska fadhiistaan ayaa la dhaami lahayd inta ama dawladda hala shaqeeyo haddii la shaqeynayna lacag ku iska xaraya iska fadhiisto intii saas ka bisharo saas oo wada beer baaban qaba askari daacadanahay dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay askari daacadanahay dal jirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay